gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa heer qaran ee Somaliland ayaa maanta soo gaadhay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaaga. Gudoomiyaha iyo xubno sarsare oo weheliyay ayaa ugu horreynba waxay kormeer ballaaran ku soo gaala bixiyeen goobaha waxqabadka dawladda hoose ee Garadag ay ka hirgelisay gudaha degmadaasi muddadii ay xilka haysay. Kormeer ballaaran kadib maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale ayaa gudoomiyaha iyo wafdigiisa uga warbixiyay waxqabadkii uu qabsoomay muddadii ay xilka hayeen. gudoomiyaha iyo xubinta kale la socota guddiga maamul wanaagga Jamhuuriyadda Somaliland markale aad baan uga mahad celinaynaa imaatinka iyo booqashada ay noogu yimaadeen. runtii waxa weeye arrimaha ay nagala hadleen aad baan u soo dhaweynaynaa waana wixii aan walba u dalbanayno shaqada iyo sharcigu uu noo sheegay ayuunbaa haddii alla iyaguna ay nooguna yimaadeen naguna soo dabagaleen naguna soo kormeereen. waanu soo dhaweynaynaa waana wada shaqaynaynaa insha allahu tacaala. waxaanu jecelahay wixii ma garanaysaa aanu shaqo qarankayga aanu haynay iyo ummadayada inaanu sii hagaajino mooyaane waxaa naga xumaan. haddaanu nahay qolyaha shaqaxana insha allah awalna dee hore hantiya ummadeed umaanaan adeegsan jirin iminkana diyaar uma nihin. waxaanu adeegaynaa waa bulshadayadiiyo waxa weeye waxaanu u nahay dadkii ma garanaysaa waayeelka ama waxgaradka ama wax u bartay ee dadkooda doonayay inay horumarka ay gaadhsiiyaan baanu nahay. marka waxyaalaha aanu qaban karno aan hore soo qabsoon aan hore u qabanina dee insha allahu tacaala waad arki doontaan ama indinaad ku arki kartaan waxyaalaha kalena dee warkooda ad helaysaan. marka dambena insha allahu tacaala waxaan u taaganay annagu mar walba inaan ummadayada aan u adeegno si hufnaana. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa mar labaad booqashadiina iyo kormeerkiina. gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga ee Somaliland hogaaminaya wafdidan ballaaran iyagoo u kuurgelaya 23 degmo doorasho qaabka maamul wanaagga ee u socdaan waxaanu ku soo dhaweynaa degmadii Garadag soo dhawaada ka bacdi waanu suuraysanay haddaynu suuraysanayna si wanaagsan ayay inoo maraysaa. waxaanu idin marin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo oo aanu idin taabsiin doonaa waxqabadkii u qabsoomay xilligii ay ku cadadnaayeen golahan maanta sii socda qaarkoodna ay sii sharaxan yihiin iyo anigoo ahaa xogaye golaha ahna xogaye fulinta ee degmada Garadag waxyaabihii noo qabsoomay aanu idin taabsiin karro oo aanu idin taabsiinaynaa. dardaaranka aadna siiseena waa mid aanu weer gabagabadii gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa heer qaran ee Somaliland ayaa hoga tusaaliyay ujeedka safarkiisa. shaqada waxaan rajaynaynaa in maadaama maayirkii maayirka xigeenka iyo xubno ka tirsan guddiga golaha deegaanka ay sharaxayeen degmada Garadag runtii wanaagsan tahay oo sida sharcigu sheegaya inaanay ku takrifalin awoodaha maamul ee gacanta ku hayaan inaanay isticmaalin adeegsan wixii hanti dawladeeda oo loo isticmaalin iyadoo laga faa'iideysanayo gacanta ay ku hayaan maamul ahaan. runtii waxaa kaloo doonaynaa maadaama muddo 8 sanadood hore ay joogeen degmada Garadag oo 2011 la soo doortay 12 la soo doortay waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee uu soo qabteen degmada Garadag inay soo taabsiyaan ay leeyihiin waxaasaan u qabanay degmada Garadag si qolooyinka soo socda ee 2000 bisha 6 iman doona haddii Ilaahay yiraahdo qaar looga saanba qaado oo diiwaanka ay ugu jirto komishanka maamul wanaagga iyo cid kasta oo hay'adaha isla xisaabtankaaba muxuu ahaayay diiwaanka hantida u taalla dawladda. runtii kulli komishanku wakiil wuxuu uga yahay qaranka marka horeba in la saxo nidaamka maamul wanaagga iyadoo la raacayo sharciga isla xisaabtanka iyo waxa loo yaqaan banyaalnimada. marka runtii iswareysi kadib maamulka degmada Garadag runtii waan uga mahadnaqaynaa inay na soo dhaweeyeen. waxaa kaloo runtii aanu ku buurinaa mar labaad iyo mar saddexaadba maadaama qofku markuu dibadda joogo shicib yahay oo ahayn qof. Maxamed Gumburi, telefishinka bulsho, Garadag.